ku jirna ayaamihii la aqbalayay ducadeena Allah aqbalo dadaalkeena Allah suubiyo diintana Allah ina waafajiyo nagu sugo aayadaha soo socda suuratu Ibrahim aakhirkeeda waxaynu dhageysanaynaa nabi anbiyada kamido nabiyada u fadli badnaa nabi Ibrahim oo ducaysanaya ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إلى آخر الآيات إلى سقال شربوا ربي ربنا ربي كسوع العينية marka waxa arkaysaa baahida aynu qabno ducada kala haday anbiyadii ulul azmiga ahaa ee u fadliga badnaa sida u ducaysanayaan marka ugu horeyn ducada xukunkeedu waa waajib waxay ka mid tahay waxyaabaha waajibka ah ee nasaaran waa ilaahay baa ina amroyay udcuuni astajib lakum amar buu bixiyo ibaryabu anna waxaan ballan ku qaaday inaan idin aqbalo ducadu xikmad bay leedahay xikmadda ku jirtaa waxa weeye balaayada ku haysatana inuu ilaahay kaaga dul qaado ta soo socotana kaaga joojiyo cibaadadana waa ka mid adducaa huwa alcibaada wa xadiidkii saxiixa ah cibaadada laftigeedii way ducadu adducaa mukhul cibaada mar kale cibaadadu waa ducadu waa dhuuxa cibaadada shay walba dhuux waa waxa asalka ah waxa marka aynu soconnaa dhowr qodob inaynu ku sheegno aadaabta ducada si aqbalkeedu u dhawaado iyo ijaabadeedu amarka ilaahay inaynu qaadano subxaanahu wa tacaala waxa kowka ah in ilaahay keligii la baryo sida aynu arkayno mar walba ilaahay cid iskuma lamaanaynayo ilaahay wuu ka weyn mid cid lagu lamaaneeyo haddaad ilaahay cid ku lamaanayso waxay ka dhigantahay iguma filla ilaahay iguma fille hebel ama heblaayan ku kabaya وإذا سألك عبادي عني وكلي ودعوني أستجب لكم وكلي إياك نعبد وإياك نستعين وكلي وحكى لا لو درين إلهي أو هبلو دي صومالد هالكاسيكو هذا إلهي أولي هبلو أي أورنشري أو كان ينكوك عنين إلهي أوري أربو كوف لي سبحانه وتعالى يحكى بضنبا أن تسوامد وأنا آداب تواجبك آداب تواجبك وحكم ذا inuu de qofku xalaal cun yahay xadiidkii saxiixa garanaysa nabigu wuxuu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu xaaraan cunayo ama dharkiisu xaaraan yahay ama dhownigiisu xaaraan yahay ama wuxuu cabaya ama wixii lagu soo koriyey dee sidee loo aqbalaya wada haysan xadiidkii 40 ku qoran fa anna yustajaabu lidalik sidee looga aqbalaya buu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waana halka laynaga raacay intay u badan tahay maanta intaynu liqliqa badino iyo qaadqaadashada ayaynu odhanaynaa roobkii baa di'i waayay balaayadii baa kici weeyday dalkii baa isbedelay waa dalaynu inagu qiiq ku neefna iyo sun marka xalaasha hal ogaado qofku hadduu doonayo inuu mustajaabu dacwo noqdo qof ducadiisa la aqbalo waa inuu xalaal cun yahay xalaal cun waa inuu noqdaa dadkeennii hore dee jeenigaasay iska cuni jireenoo xoolahooda iyo cadkooda iyo caanahoodaas iyo waxaan walaaqane baac mushtariga iyo khiyaamada iyo balaadaas way ku yaraayeen markay ilaahay baryayaan markiiba waa loo aqbali jiray aadaabta ka saddexaad waajibkii waxa weeye in markaad ilaahay baryayso dembina ha ku ducaysanin qaraabo goysnimana ha ku ducaysanin rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam midkiin waa la aqbalayaa ducadiisa maa lam yadcu biithmin aw qatiicati raxim haddaanu qaraabo goysnimo ku darin ducadiisa ama dembi ku darin waa caam haddaad wax dembiya ilaahay barido ama dadka habaarayso ubadkaaga ehelkaaga ummadaada lagama aqbalayo adaabta waxa kamid ah afraad in ilaahay subxaanahu wa tacaala la qadariyo la tixgeliyo ata'adubu maca allah inaad ilaahay ka edebsato markaad baryayso waxaa ka mid a siyaabaha looga edebsanayo hasaluugin ilaahay waanu barinayoo waxbaba naga aqbali waa maxaanu barinay aanu ku celinaa tii hore mu aqbalin wuu ku aqbalay adaan ogeyn haddaan maanic xaggaaga ka imanoon wax ducada diida xaggaaga ka iman ama balaayo soo socotuu kaaga joojinayaa ama aakhira buu kugu dibdhigayaa kollayba uu aqbalayaa waayo ballan buu qaaday rabbi subxaanahu wa tacaala aadaabta waxaa ka mid a inaanu ku raacinin ereyga ah in shiita waa inaanu raacinin ducada
hadduu in shiita raaciyo iyadana waa lagama aqbalayo ilaahay allahuma taqabal ducaa'i in shiit waa xadiidka rasuulka sida ku sugan sala allahu calayh wasalam ilaahu ducadayda aqbal haddaad doonayso waxaa laga fahmaa dee qofaad dirqii karto ama xoog wax kaga qaadi karto ama cid kalood ku bedelata aada hayso hadduu dooni waayo maxaa jira baa isweydiin leh hadduu dooni waayo meel kaloo tagta ma haysataa meel kale ma haysid haddaba ilaahaaga ha isku taagin hana isku dhararinine mar walba ku celceliyun ducada badi waa adaabtii bay ka mid tahay ilaahay aad ka edabsanaysa subxaana wa tacaala adaabta waxaa ka mid a cadamu rafci sawt inaanad qaylqaylinin dad baa salliga la qaylinayo ducada la qaylinayo magaalado dhan gaadhsiinaya waxay u baahan yihin khushuuc siiba markaa si gaara u ducaysanayso arbicuu calaa anfusikum fainakum laa tadcuuna asama walaa gaa'iban rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leey waxba haysdhibine naftiina marxiya oo u kaadiya ma baryaysaan mid dhegala ama idinka maqan ilaaha baryaysaan wuu idin dhow yahay wuu idin maqlayaa adaabtay ka mid tahay asxaabtiisii buu nebigu ku waaninaya calayhi salaatu wasalaam sidaa ducada adaabteeda waxaa ka mid ah asmaadiisiiyo wax waliba cid waliba afgarashay leedahay markaynu doonayno ilaahay inaynu afgaranno waynu doonaynaaye inaynu ku bilowno ammaantiisa iyo mahadnaqiisa iyo asmaa'adiisa magacyadiisa iyo tilmaamihiisa inaynu ilaahay ku barino subxaanaه wa tacaala walilaahi alasmaaء اlxusnaa fadcuuhu biha magacyo aada u qaaliyahoo wanaag badan buu ilaahay leeyahay ku barya buu leeya ilaahay qul idcu اllaha aw idcu الraxmaan ayamaa tadcuu falahu اlasmaaء اlxusnaa الraxmaan allah kaad doontaan ilaahay ku barya oo magacyo wanaag badan buu ilaahay leeyahay ku ducaysta buu ilaahay leeyahay marka ya raxmaan ya raxiim markaad xooga akrida ducadaba asmaadaad ku daraysaa siyaabuhu ilaahay ku aqbalo